kulan wanaagsan daawadayaal Iran oo tiri Kaybleyur ayaan ahay waliba gantaaladeenu waxay ku sii jeedaan maraakiibteena war argagax leh oo ka soo baxay dalka Iran isla markaana argagaxiyay Trump iyo waliba dawladdiisa isla markaana maraakiibtiisu waa loo baqaa haddaba maxaa keenaya waqti maanta war farxad u ah dadka Iiraaniyiinta iyo waliba reer Iran uu soo baxay oo ku aadan xaaladda dalka Lubnaan iyaduna maxaa lagu heshiiyay waxaan ku hayaa sheeko yaab leh oo isagu soo bandhigay general kacaanka ee Khatami oo ah sarkaal aad garanaysaan isla markaana kuwii aasaasay dalka ayaa la tilmaamaa nidaamka kacaanka islaamiga lafdhabar ayuu isagu yahay isaga iyo waliba ninkii Asim Munir ahaa ee Pakistan ka socday ee tagay halkaasi iyo waliba saraakiishii xarunta Khatamul Anbiya uu kula kulmay xogo baan idinkaga hayaa marka sheekooyin xiiso badan oo ku saabsan wixii halkaas yaab ka lahaa ee Iran lagu arkay ayaan ku hayaa Pakistaniyiintu waa laga yaabsaday runtii waxyaabo badan ayaan ku hayaa isla markaana aan ku eegi doonaa sheekooyinkii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale qayb ka ah Iiraaniyiintu jawaabta ay bixin karaan waan ku hayaa iyo fariinta la gaarsiiyay odagii Asim Munir ahaa soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan channelka subscribe saaro si share garee saaxiibayaal mahadsanidin aad baad u mahadsantiin waan kaga mahadcelinaynaa si aad ugu xirantiin runtii gordhaweyd madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump wuxuu ku dhawaaqay heshiis xabad joojina oo dalalka Lubnaan iyo waliba nidaamka Israa'iiliyiintu dhexmaraysa yani heshiis 10 cisho oo xabad la joojinayo maalmihii ugu dambeeyay dagaalyanada Hezbollah iyo waliba Israa'iil baa isku haystay koonfurta dalka Lubnaan halkaas oo khasaaro badan uu isagu ka dhashay dagaaladii ka dhacay Lubnaaniyiintu waxa laga burburiyay tuulooyin magaalooyinka ay ka mid tahay Bintu Jubayl ayaa khasaaro xoogan ay ka dhaceen laakiin ciidamadaasi faraha badan ee boqolka kun sare u dhaafaya ee lagu soo daayay koonfurta dalka Lubnaan waxa ka hortagay dhalinyaro yaryar oo ku dhashay tuulooyinkaasi isla markaana jilbaha dhulka u dhigtay waxa lagu soo waramayaa inay ka difaacdeen inta badan magaalooyinkoodii waliba saacadihii ugu dambeeyay marka wada hadalladu ay socdeen waxay isku dayeysay Israa'iil inay qabsato magaalooyin hor leh laakiin ciidamada xisbiga ama dagaalyahanadoodu waxa la tilmaamayaa in dagaal qaraar ay kula galeen deegaanada Khiyaam iyo waliba Bintu Jubayl war soo baxayna waxa la tilmaamayaa xitaa inay jireen gantaalo ay ku dhufteen taangiye kamid ah kuwa Israa'iiliyiintu waliba 4 taangi ayaa la xaqiijiyay mar dambana 2 kale ayay sheegeen xisbigu inay ku guuleysteen laakiin khasaaro fara badan ayaa gaaray dadka Lubnaaniyiintu guriyoodii waa la baabiyay khasaaro markaan sahlanayn baa la tilmaamayaa laakiin iyagu waxay ku leeyihiin anagu waxaan nahay gobonimo doono oo waxaan doonaynaa xorriyad dhulkayagii baa la haystaa waana la ku soo duulay waxaan rabnaa inaan is xoreyno markaasi marka halkaas ay marayso waxaa soo baxay ninka waxa la yiraahdaa ninka la yiraahdo Joseph Aoun wuxuu madax u yahay xukuumadda dalka Lubnaan khadka telefoonka ayuu isagu madaxweynaha dalkaasi Mareykanka kula xiriiray isagu waxa uu rabaa markaasi kursiga u fadhiyo marka Israa'iil la raali geliyo in laga tataragibe ahaanba dalkaasi Lubnaan oo Iiraaniyiintu waxay gacan saar leeyihiin Shiicada kuwan marka Christianka oo madaxweynaha isagu ugu weyn yahayna waxa markaasi dabada ay kula jiraan reer galbeedkii waliba markaasi dadka reer Faransiiska iyo Mareykan iyo Israa'iil iyagu halkaas bay kula jiraan waxa ku soo haray Sunniyiinta kale Mohammed bin Salman iyo Sacuudiga ayaa ka amar qaata marka waa dal sideenoo kale u kala habaaran oo u kala gogo'an oo dib ay haysato faragelintu aysan ka dhamaanin midba dhinac laga amro markaasi wax badan baan ka simanaa iyagu madaahib hadii anagu qabiil aan isku haysano iyagu madaahibtaas bay marka midba dhinac kale uu isagu ka amar qaadanaya xogii ugu dambeeyay marka waxa leeyahay faahfaahin ayaa laga helayaa xabad joojintan yaa hirgeliyay ma Mareykan baa hirgeliyay mise Iran baa hirgelisay halkan baan ka ogaanaynaa sarkaalkan ama ninkan waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Lubnaan laakiin wuxuu matalaa ururka xisbiga xildhibaanay ku leeyihiin dadkaas wasiiray ku leeyihiin rag saalan ma ogsoonow Xasan Fadlallah baa la yiraahdaa Reuters buu la hadlay wuxuu yiri safiirka Iran baana soo wacay wuxuuna noo sheegay xabad joojinta caawa inay bilaabanayso tani waxay ka dhigan tahay in Iran warka uu ka yimid laakiin waxaan dhihi karnaa Hezbollah iyaga isku xayisiinayo
laga yaabay Iiraan iyo iyaga inay isxayeysiiyaan waxaan u baahanahay meel kale oo iyaga ka baxsan oo xogtooda xaqiiqisa marka ama xaqiijisa yaa soo baxay marka warkan baa soo baxay telefishinka Al-Carabi ayaa qoraya isagoo xiganaya jariirada iyo diicooda xarnood la yiraahdo ee Israel laga leeyahay waxay leedahay iyadoo la hadashay mas'uuliyiin Israa'iiliya waxay jariiradaas u sheegeen mas'uuliyiinta Israa'iiliyiinta marka Kushner waa wiilka sodoga u yahay Trump iyo ergeygiisa wada hadalada iyo waliba u qaabilsan umuraha sidaas dalaalnimada Witkoff la yiraahdo waxa uu yiri labadaas ayaa cadaadis ku saaray Trump si xabad joojinta Lubnaan loo hirgeliyo iyagoo ka baqaya Iiraan inay kala wareegto Iiraaniyiintu ma naxayaan cabsi laga qabo wada hadalka Iiraan lala galayo ayaa horta loo ogolaaday warkaas sidaas ku dhahay warkii warbaahin Israa'iiliya waxa waaye kama hadlay wargeys kale oo marka Carbeed oo laga yaabo inuu xukuumadda markaas la jiro ama Xisbullah la jiro laakiin Israa'iiliinta ku dhahay ninka labada mooyaane haddii iyaga ahaan lahayn dagaalku waa sii socon lahaa xabad joojintana Trump waxa ku cadaadiyay labadan iyagoo ka baqaya ma hadda jacayl iyo cabsi iyo sheeko kale waxa laga baqayaa Iiraan wada hadalada inay ka baxdo oo tira marka Iiraan baa guuleysatay warkanna wuxuu farxad u yahay Iiraan maxaa yeelay warkeedii ay ka dhabaysay oo tiri hala joojiyo marka halkaas baa horta la kala maraya wuxuu yiri Trump 24 saac ugu dambeeyay marba ismaqalnay update bay siiyaan baa leeriyo marka laga hogaamiyaasha dalka Iiraan oo iyagu garbaashay wada aragteen baan filayaa horta arinta Lubnaan halkaas baa la kala maraya qasaaro waa jira xiisadu ma sahlana dabcan halkan waxaan kugu hayaa reer Yemen warkoodii waa ka soo daray reer Yemen waxay rabaan inay xiraan marin biyoodka Bab al-Mandab ayay rabaan iyagu inay xiraan hogaamiyahooda Cabdilmalik ninka la yiraahdo ayaa wuxuu sheegay inay diyaar u yihiin inay garab istaagi doonaan Lubnaan waliba wuxuu tilmaamay maadaama uu hadda heshiis lagu guda jiro xabad joojina wuxuu yiri haddii ay fashilmaan mandiqada oo dhan baa isla holcays heegan baan ku jirnaa daran Sacuudiga Mareykanka buu la xiriir wuxuu yiri Mareykanku iyo Trump dadkaas aan ugu taataabanina hadda taabataan marin biyoodka bixirayaan Bab al-Mandab halkaasna waa isku dhamaatay Hormuzna xagga Iiraan baa xiraysa oo hadda xirtay u xiran tahay halkana iyaga ka taliya marka culays weyn ayaa halka ka taagan Xuutigu waxa leeyahay waxay sheegeen inay garab istaagi doonaan shacabweynaha Lubnaan waxayna tilmaameen cidda soo duushay maaha bay yiraahdeen xisbiga oo hub laga qaadayo oo u baahan tahay hubkiisa marka inuu qatar geliyo dalka laakiin qatarta waxay ka imanaysaa Israel wajaha bay yiraahdeen meelaha ku meereysanina cidaan markaas waxba idin ka hadlayn iyo cid markaasi aan idinku soo duulino qatar kale ay idin geysan marka sheekada xiisaha leh aan ku hayo Iiraaniyiintu haddii wada hadaladu ay sidaas markaas sameynayaan oo iyo wada hadal ay kula jiraan hadda ma diidana inay iyaguna markaas gacan dagaal leeyihiin waxay yiraahdaan anagu hadaladana diyaar baan u nahay laakiin geesta kale ma nihin dad isdhigta waxaan diyaar u nahay si toos inaan idin wajahno yaa cadeynaya qormadan aad arkaysaan waxa laga soo qaaday mid ka mid ah wargeysada ugu afka dheer Mareykanka Wall Street Journal baa la yiraahdaa waxa wax ka qoray sarkaalkan aad arkaysaan waxa la yiraahdaa Muhsin Ridai ragga badan ma aha ninkan iyo ragga kale ee marka xiriirka la leh wuxuu leeyahay Muhsin Ridai cable yurar baan nahay oo gantaaladeedu waxay ku sii jeedaan oo kaybkaba aan marka u haynaa maraakiibta marka reer Mareykan oo waba ku sii foorarina qoryaheennaba marka waba cable yurar baan nahay buu leeyahay raggan haddii xataa la dilay qaarkood madaxdoodii odagii ugu sareeyay Ali Shamkhani raggii miisaanka lahaa hadda ma soo joogsanayaan raggu waxba ka sii qaadeen baad adeeg iyo mintid iyo macaangagnimo markaa waa laga yaaban yahay odagii Trump baa yaaban wuxuu leeyahay bal kuwan maxay ahaayeen haddaan xogaa ka dilay xataa markaa ma tanaasuliyaan maxay ahaayeen marka xaalku kuwana ma sahlana khatar weyn ayaa bandiqada ay wajahaysaa haddii hadalladu ay fashilmaan sidoo kale halkaa maaha Maxamed Baaqir Qaalibaaf waa la hadlay odagii ahaa Caasim Muniir taliyihii ciidamada dalka Pakistan ee tagay wadanka Iiraan waa la sheekaystay Muniir waxa la yiri soo dhaw Iiraan diyaar bay u tahay jawaabtii hore ka xoog badan
inay markaasi bixiyaan. tii hore mid ka xoog badan ayaan diyaar u nahay inaan bixino. warkaas waa cad yahay soo maa. maanta waxa uu booqday Qaasim Muniir taliyaha ciidamada dalka Pakistan xarunta ama sarkaalka ugu sareeya ee haysta Khatamul Anbiya Cabdilaahi nin la yiraahdo qatar badan baa markaa haysta. waliba askarta intooda badan maanta sawirada la qaaday wajiyadoodu waa la qariyay si aysan qatar kale ula kulmin samarkaan Israel u beegsan. laakiin waxa leeyahay Israel aad bay uga faa'iideysanaysaa xogo badan bay aruurinaysaa inta markaa sarkaalkan uu isagu ku sugan yahay halkaasi. Qaasim Muniir sheekooyin badan baa dhex martay halkaas uu isagu markii uu tagay ku arkay. wuxuu yiri aniga 2 diyaaradood hawadiina noo fura markaa hawadiina waxaad u furtaan 2 diyaaradood. labadaas diyaaradood waxaan rabaa in aad markaa ii ogolaataan inay soo galbiyaan oo ilaaliyaan. war maxaad ka sheekeynaysaa baa leeyahay. ninkan baa ka sheekeeyay marka wuxuu leeyahay anigu markii iga codsada waa yaabay buu yiri. 2 diyaaradood maxaa uga baahan tahay baan ku niri buu yiri. ma aniga ilaalinayaan amnigayga buu yiri. marka ninkii Pakistaaniga ahaa Generaal Qaasim Muniir waxa la yiri soo dhawaada. markaas baa waxa la kiciyay diyaarado fara badan oo dawladda dalka Iran ay leedahay. markaas baa lagu soo galbiyay diyaarado aan caadi ahayn sida sarkaalkan uu isagu sheegay. macnaha waxay tahay Iran waxay haysataa diyaarado ilaa hadda aan la isticmaalin. diyaarado qatar badan. generaalkan Amiir Xaatimi baa la yiraahdaa xogta laga soo xigtay. marka Iran waxa leeyahay diyaarado bay haysataaba. marka sheekadu ma sahlana xaalkuna waa ka sii dari karaa Ilbiriqsi. ninkan oo goor dhaweyd hadlayay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Lubnaan wuxuu u sheegay dadka reer Lubnaan inaan lagu degdegin goobaha dagaaladu ka istaageen ee deegaamadoodu dadka rayidka ay halka ka soo barakacayna ay ka sugaan oo yaan lagu noqonin goobahaas buu leeyahay. marka hal la sugo xabajoojinta taga dhaqan galayso. marka saas buu isagu fariintaasi u diray. marka sidoo kale diyaaradan MQ9 baa la yiraahdaa Mareykanka waa iskale. marka waxa la tilmaamayaa 20 xabo baa ay lahaayeen marka Mareykanku dhaqaale fara badan baa ku baxa. horta Iran baa ka dharagtayba marka waa soo ridaysaa mid ay gubto mid ay marka furfurato iyo way ka dhigeen dhowr xabo bay soo rideen. marka hadda mid baa la laayahay baa leeyahay meelay ka baxday lama hayo. gudaha dalka Iran bay ku maqantahay sida hadda wararka ugu dambeeyay ay sheegayaan. Trump waa lagu kacsan yahay gudaha aqalka cad marka la eego. xildhibaankana aad arkaysaan waxa uu ka tirsan yahay golaha wakiilada Mareykanka. waxa la yiraahdaa Mast wuxuu yiri dagaalka Iran waxa uu joogsanayaa 2 toddobaad buu yiri ama dhowr toddobaad. yani wuxuu qaadan doonaa dhowr toddobaad buu yiri. laakiin wuxuu sidoo kale sheegay in xildhibaanadii jamhuuriga ah ay sabarkii ka dhamaaday. anagu hadda sabarkii waa naga dhamaaday buu leeyahay. macnaha Trump xitaa dimuqraadiyiinta marka laga soo tago kuwii isaga gruubka ku ahaa waa dogeedeen maaga qaacidadiisii iyo jamaahiirtiisii ayaa ka soo horjeeda oo Tucker Carlson ugu horeeyo horiye macaangago midigta fogaha ayaa hadda wuxuu ka soo horjeedaaba kii kale. marka Trump kuwii bidixda inta lumiyay ayuu midigtii xag jiradii ayuu haddana sii luminayaa baa leeyahay oo marna aan raalli ka ahayn waxa socda maadaama ololihii uu ku galay dagaal inuusan jiri doonin mushkilad kale inaan la samayn doonin in qatarta halkaasi lagu ekeyn doono. xogihii ugu dambeeyay ayay kuwan ahaayeen daawadayaal. soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan channelka subscribe saaro sii share gare meel kastoo aad joogtaan like ku dhiirigeli muuqaalka. mahadsanidin.